والله والله ثم والله والله ثم والله هذا سن جوجين واضحين kuwa aan ka hadlayay ee nadayacay shalay si غير mas'uulnimo ah u sahladay badeen inay baxdo in hanti la boobo umada la gaajeysiyo murashaxiintu ay daalaan dadku ay daalaan adoo waqti ka dhamaanay choice-kan ada iskale mas'uul darro ma dhicin qof iyo codkiisa waxa loogu yeeray election dadban marka anaga soo marnayna warsada baasha dadka soo fikiraan rabaa inay sheego laga soo bilaabo 2012 marka ay jiraan ololaha doorashooyinka siyaasadeed waxa caadi noqday weerarada shakhsiyeed iyo magacdilka waxaana si darro ah kuwa aan ka hadlayay ee nadayacay shalay si غير mas'uulnimo ah u sahladay badeen inay baxdo ama dana gaara ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirtay haddana xukunka dalka inay qabtaan qofka Soomaaliya oo caqli leh oo dadnimo ay ku jirtaa waa garan karaa waxa ka dhalan kara dadka noocaas mas'uuliyadooda iyo garashadooda noocaas ay tahay markay talada dalka qabtaan waxay u horseedi karaan dalkan cabsida laga qabo hogaamiyaha dalka inuu kursiga sii joogo ama ku guuleysto isagoo ka faa'iideysanaya awoodda dhaqaale ee maamulka dalka dadka ka soo galaysa 6 milyan ama 7 milyan ama 10 milyan oo doorashada aad jiddo maalin walba xisnada dawladda lacag ka soo qaadiyo kaameenka ku gashay dadka kale oo kaameenka kula jira dakhligooda oo kooban yahay ama aysan haysanin ujeedada wax loo jiiday marka waa cadaa karta in hanti la boobo umada la gaajeysiyo murashaxiintu ay daalaan dadku ay daalaan markaas laga faa'iido isxijinta ama baqdinta laga qabo saameynta maamul goboleedyada maadaama nidaamka qabaliga ah uu xoogan yahay waxaana si darro ah inay qaar ka mid ah madaxda goboleedyada ay isku dayayaan inay shacabka Soomaaliyeed ku qasbaan hogaamiye ku fashilmay hogaankii iyo mas'uuliyadii dalka ismuujinta adoo waqti ka dhamaanay choice-kan ada iskale choice-ka koob qaadatan cawaaqib ka dhashay iyo consequences waxa afqalay hanjabaadda iyo handadaadda 4 qof iyo 10 qof iyo 20 qof oo dana shakhsi wata oo argagixisada ay ku soo dhuumanayaan magac naga hadleen maayaan gacan biras ka qabanaynaa والله ثم والله والله ثم والله والله ثم والله هذا سن جوجين واضحين eedeynta iyo sheegista dulduleelada dawladda in doorashadu ay noqon doonto qof iyo cod waqtigii loogu talagalay la qaban doono oo ahayd September 10-keeda mas'uul darro ma dhicin qof iyo codkiisa waxa loogu yeeray election dadban mana dhicin waqtigii loogu talagalay ujeedka ugu weyn ee weerarada noocana waa helista kuraasta tartanka loogu jiro iyo muujinta cudud siyaasadeed si taas loo gaaro waxa nacayb lagu dhex abuuraa bulshada kicinta dadweynaha iyo colaad abuurka ayaa ah istaraatiijiyad ay adeegsadaan siyaasiyiintu haddaba siyaasiyiintu siday u fikiraan waa kan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo noo sharaxaya marka anaga soo marnayna warsada baasha dadka soo fikiraan rabaa inay sheego qofka doo mucaarad yahay dadku wuxuu ugu nacab yahay ninka nabadda sheega dadka wuxuu ugu nacab yahay ninka la yiraahdo la wada hadlo ninka yiraahdo ninkaas ugu nacab yahay walaalkeen warcad waa kan hadda meeshan fadhiya anaga marka mucaaradka wada hadalka intuu soo bilaaba Cabdullaahi Yuusuf asaga waxaan jeclaan Cabdullaahi Nuuran Nacbay معايا الباب ده naga soo xiray wuxuu ku leeyahay aniga nabadaan rabaa qof walba waa la hadlaa dagaalka waa inaan joojinaa shabaabka waa la hadlaa maxkamadii waa la hadlaa isbaysiga waa la hadlaa marka waxa sameeyay nacaybka iyo qabyaaladda ayaa la xoojiyaa marka tartan ku dhamaadana gorgortan iyo isbaysiyo cusub ayaa sameysma laakiin cudurku waxa uu ku haraa qulubta bulshada 4 sano kadib ayaa mar kale dib cuqdadii iyo cadaawadii loo bilaabaa inaan ballan wadaagno shacabkayaga iyo ummadayada khataraha badan ee jira ee soo socda
ee ay keeni karaan iska horimaadyada iyo hadallada iska hor imaanaya iyo tartanka loogu jiro doorasho xalaalaan rabnaa doorasho xalaala ummaddana aan dhibaato u keenin ummaddana u dana waa laga daalay qori iyo dagaal iyo rag maalin walba maaragtay eegaya iyaga oon dalka iyo dadka eegayn waxaan rabnaa doorasho xora oo xalaala oo nadiifa taasina waxay noqon kartaa doorashadii kolkii hore lagu heshiiyey waa muhiim in shacabku uu ku baraarugo hardanka saamaynta guracan leh ee siyaasiyiinta